شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام عليكم. midii ayaan ismariyay waan soo jiiday waa igu filnaan weysay mar labaad ayaan ismariyay ama isku jeexay haddana waxaan sii jeexay minkayga qof aan carruurtayda ka ahayn ilama joogin sidaan aan macquulka ahayn waxaa sameeyey Ines Rimares Beres si ay u badbaadiso nolosha cunugeeda ay dhalayso. muuqaalkeena maanta ayaan kugula wadaagi doonaa gabadhii ugu horeysay oo la diiwaan geliyo taas oo isku dhalisay qaliin si iskeed ah mana jirin wax dhakhtar ah oo caawiyey xitaa kalkaaliso. balse ka hor muuqaalka haddii ay tahay markii kugu horeysay janaalka aana danaynayso sheekooyinka caynkan oo kale ah fadlan like dheh subscribe-na saar janaalka gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelin doono ee waxtarka leh. aan bilaabo fiidiyowga. xilligii ay qaadaysay uurkeeda sideedaad Ines Rimares Beres waxay niyadda ku haysay in foosheedu aysan noqonayn mid fudud oo aan dhib lahayn. waa 40 jir deganeed buuraha koonfur bari ee Mexico horena u dhashay 6 cunug oo nabad qaba halka keeda toddobaad uu kaga saqiiray calqalad ku timaaday foosheedii u dambeysay. waqtiga ay qaliinka isku samaysay waxaa hayay xanuun 12 saacadood oo xiriir ah kuna keenay inay xaqiiqsato in cunugeeda uurka ku jirana ay waayi doonto haddii aysan samayn ficil ama go'aan culus aysan qaadan. waxay ahayd 5tii bishii 3aad ee Maaj sanadkii 2000. Beres xarunta caafimaad ee ugu dhow waxay u jirtay 50 mayl. ninkeeda oo caawin lahaa waxa uu joogay meel aan lahayn isgaarsiin taleefan. sidoo kale iyaduna ma aysan haysan wax taleefan ah oo ay gargaar ku dalbato. Beres way ogeyd habka kaliya ee uu ku badbaadi karo cunugeeda inuu ahaa inay iyadu isdhaliso. waraysigeedii ay bixisay qaliinka kadib waxay ku sheegtay in ay go'aansatay haddii uu dhinto cunugeeda inay iyaduna dhimato balse haddii uu badbaado oo uu koro inay aragto sida uu u korayo. Beres waxay cabtay dhowr cabitaan oo maanka dooriya si ay u yareyso xanuunka qaban doona waxayna soo qaadatay muddo 6 inji cabirkeedu yahay mana lahayn wax khibrad caafimaad ah balse waxay khibrad u lahayd sida loo gowraco xayawaanada ama xoolaha. Beres waxay ka samaysay gumaarka halkiisa sare 3 jeexdin halkii ay ka samayn lahayd 1 jeexdin oo jiif ah waxayna sii raacisay jeexdin dheer oo taagtaag ah iyadoo ka ilaalisay in xudunta xaggeeda ay soo gaarsiiso mindida ay isticmaalaysay. intaasi kadib dhibaatada soo gaari lahayd xubnaheeda gudaha ee caloosha iyo nafteedaba waxaa sabab u ahaa ka sokow alle inay badbaadaan qaabkani uu alle ku toosiyey. saacad kadib shaqo daal leh oo adag waxay awoodday inay soo jiido oo ay soo bixiso cunugeeda kaas oo bilaabay inuu neefsado. Beres ayaa soo qabsatay 2 maqas oo ay xudunta kaga jartay cunugeeda ka hor inta aysan miir daboolmin. goortii ay miirsatay waxay ku dabooshay caloosheeda funaanadka agdhoweyd una yeertay mid ka mid ah ilmaheedii 6 ahaa kaas oo da'diisu ay ahayd 6 jir laguna magacaabi jiray Beneto waxayna ugu wacday inuu aado magaalada caawinna ka raadiyo. Beneto ayaa la soo noqday mid ka mid ah kalkaaliyaasha caafimaadka ee deegaanka oo loo magacaabi jiray Leno Cruz. kalkaalisadan ayaa dhaawaca Beres uga tashay dun iyo cirbad caadi ah. ugu dambeynna waxay u qaadeen Beres iyo cunugeeda oo loo bixiyay Orlando isbitaalka magaalada oo u jiray 8 saacadood. Leno iyo mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka dhaqaatiirta isbitaalka 16 saacadood kadib dhalashada Orlando waxay awoodeen si buuxda inay u baaraan Beres xaaladdeeda guud oo wanaagsaneyd. umulisooyinka isbitaalka waxaa la yaab ku noqotay sida qaliin nafsi ay isugu samaysay Beres iyadoon lahayn wax dhiigbax gudaha infection ku dhacay iyada iyo minkeeda oo u shaqaynaya sidii caadiga ah oo aysan dhibaato ku noqonayn inay mar kale uur qaado. dhaqaatiirta isbitaalka joogtay ayaa go'aansaday inay soo bandhigaan dhacdada Beres
iyagoo ku qoray joornaal lagu magacaabi jiray International Journal of Gynecology and Obstetrics, iyagoona kala dan lahaa in la caawiyo dareen goonina la siiyo haweenka dhibka ay marayaan awgood, sida Beres oo kale, taas oo ku nool deegaan fog oo aan lahayn daryeel caafimaad oo ku filan. In la soo daabaco ama la soo qoro xaaladda Beres waxay siinaysaa in ay tahay mid mudan in loo aqoonsado haweeneydii ugu horreysay ee isku samaysay qalliin iska dhalin ilmeed ama afka qalaad waxa loo yaqaano C-section, kaas oo hooyada iyo cunugaba ay badbaadeen. Muuqaalkeenna maanta intaasi ayuu ku egyahay daawade. Haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar, hana iloobin inaad subscribe dhahdo channelka, gambaleelkana aad furato. Commentiskana iigu reeb haddii aad rabtid muuqaaladan oo kale. Fiidiyowga inoo xiga insha Allah.